Halo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halkan waxaa ka salaamay Soomaali oo qof walba oo mataqaana luqad Soomaali ka hadla. Halkan waxaan ila joogto walaashii Farxiyo Jubbaland oo noo sheegtay in mataqaana fiidiyoodii iyo sawiradii Facebook soo gelinaysay lagu khasbay oo mataqaana ay wax ka dambeysay gacan kale. maantana waxay diyaar u tahay in mataqaana cid walba oo Soomaali cid walba diin iyo gabar walba qof walba gabar la dhalatay inuu mataqaana hadii la raali kaaga yahay arrinkaas ay kala gelinayso kana xun tahay waxayna noo sheegtay in mataqaana maanta wixii ka dambeeyay arrinka ay isku laabanaynin arrin ay ka fogaatay oo ku qadantayn oo noqday annaga oo soo booqanayna aad bay noo sharaftay oo na soo dhaweysay oo noo sheegtay waxaas wax mataqaana foolka keenay inay noqotay caawana waxay sheegaysaa in wixii caawa ka dambeeya Farxiyo sawir ay soo gelin doonin qofkii magaceeda soo qaadan lahaa iyo qofkii sawirkeeda ku qaraaban lahaa iyo waxaas oo dhan ay noqon doonaan wax ayada ka dambeeya iyo dad mataqaana nolosha ka dhacay oo doonaya inay gabdhaha Soomaaliyeed ceebeeyaan oo mataqaana sidii yihiin oo kale ka dhigaan Farxiyo way joogtaa inta mataqaana ka dhiman ayada dhameystiri doonta Ilaahay السلام عليكم والسلام على أصحاب فيسبوك وكل اللي سعودي ولا ليالو عني أدخلت كده عود عاي وحسوا علم كلامهن والله سورات هذه الفيديو يا شيء ذا شير كلامي سورات هذا صار ميعيقة فرنسين بيجيش بس كداية خلنا رصاص عرباينا أي شيء. waxay kaloo ku daraysaa insha Allah ragga YouTube ka geliyeen inay gabar YouTube ka geliyeen way siqaana wareer jarmal fadlan wala leeyaalo iga saara haday gabar kula dhalatay iyo hadii mataqaana hooyo ku dhashay waa ka naxaysaa waa gabar Soomaaliyeed qof walbana uu qaldami karaa qofka muxuu ku qaldamay lama dhaho Ilaahay baa caafiya marka gabadhaana hadeertan waxay codsanaysaa in fiidiyoada sawirada wax dhan Facebook laga saaro ayadana insha Allah Facebook mataqaana hada wixii ka dambeeyo way isticmaali doontaa sidii hore oo qof caadi oo loo isticmaali doontaa arrinkan waxa ku khasabay xanaaq diinta islaamkana waxay qabtaa qof walba aad u xanaaqa xataa dambiyada ka dhacay Ilaahay waa caafiya marka waa anagoo bini aadan marka hadii ay raali kaaga yahay caawa Farxiyo way maqashay dad badan oo asxaabada meesha way la fadhiyaan hadda nimcaan oo kale ay fadhiyaan nimcaan ku darso adiga ay nimcaan waxaan ku darsanayaa gabadha walaasheena oo maanta la shaqeystay oo soo raadinay oo weynay inay naga aqbasho wixii oo ahaa inay diiwaan dhacay ee marka dadweynaha oo marka walaasheena aad u mahadcelinaynaa asxaabteena waxaan ka codsanaynaa oo kaliya inay jaraan oo iska dhaafaan wali u sheegareena Facebook adigana abti maxaa ku darsanaysaa السلام عليكم أدعي وخيار يلا مدام ولا شيء الفرحة كلنا في شيء ما شاء الله أحسن هاي وحايد شيء ninki macawada Maxamed aha عليه هذا الصومالي مركا الصوماليين حق عصرنا ملك استوى جودان إيشيا أفريقيا ملك استوى كل دين هنا ولا شيء ما أتذا كذا فان صورة قف كاستقام أنا أوله معناها qof kasta wuxuu awoodo ha u qabto aadi shaqada kaliya ma ahan gabar Soomaali ceedo anaga dhan oo ceedo weeyaan marka wana waxa dhacaan isoo dhacaan Soomaali og tahay wax badan anaha raadiyaan waxa u dhacay anaha waxa sidan hadda soo koob walaashayna waa tanaawan naftiisa wax kale waxa ku daraa insha Allah Maxamed iyo Maxamed leeyahay warka ku faraxsanahay maanta Farxiyo inaan joogno inaga aqbasho waxaan u leeyahay sidoo kale tan anaga xumaato macna qof walba waxaan leeyahay xumaatada meesha ka suulin kara ka suuliyo qofkii musawirkeeda arko xataa dileed asiyo qofka ugu jiro iska bixiyo qof dadka YouTube ka galiyay ay si qaaraan iska bixiyaan anagana macna waxaan leenahay Ilaahay macna farxadeed noo taayro ilaahayna ha wastar gabadha ilaahay antana astur madda macna ka soo qaad qof walba ka soo qaada inay walaashiis ay tahay oo kana walaashana maanta ma u ogolaateen in meelaha soo socoto hadda mar dhow hadda musawir arkay la soo dhigay Facebook qofka soo dhigay soo geeya ka bixiyo walaashiis insha Allah hay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أباني سلام يا أصحاب تقاليد ولاشين فرحية جبلان سفي عن النصر اللي ما دام إني أقبشي أصلي عن وكان سنة مركب ولا لين غالي وحكوا عسننا ولاشين ويكتبت كنتي أرميه كل غاضي الشيطان أيا كغالب النقطة مركب وحنكوا عسنا ولا لين إني كسران صبرادي يو فيديوهاش إني كسران يوتيوب كنا كسران انتصر كعسنا يا عبد الله دقف runtii waxa weeye waa la soo wada keenay in talaabud la soo wada jeediyay waana idinkaga mahadcelinaynaa idinka oo aan rabno aan idin soo gudbinayno in aad naga qaadataan talada aan idin soo gudbinayno ana magacayga Cabdullaahi Dhagaf baa la yiraahdaa gabadhu waa gabar walaashay ah waa gabar Soomaaliyeed runtii waan u damqaday dareen baa ay galay
waxaana ka soo qaaday walaashay hooyadii aabaha ay dhaleen oo kaleeto sababtoo taa iyadaba hooyo Soomaaliyeed baa dhashay aaba Soomaaliyeed baa dhalay ehel iyo qaraabo iyo tol iyo dad bay leedahay marka qof kasta oo wanaag jecel waxaanu ka codsanaynaa annagu qof xumaata jecel waxba kama codsanayno laakiin inta wanaagga jecel waxaanu ka codsanaynaa in ay dareemaan xanuunka annagana wada taabtay ee aanu dareenay runtii gabdhaha Soomaaliyeedna kaligoodna ma ahan wiilal fara badan oo qof kasta bini aadam waxa way dambi uu galaa waxaana ugu fiican qofka dambiga intuu ka dhaco haddana ka soo laabta gabadha walaasheena waxaan u malaynayaa 5 maalmood waxaan dhamayn ba khadka Facebooka hadda ay ku jirtay runtii annagu 5 maalmood waxa weeye markii naloo sheegay in gabadhu Nairobi ay joogto dadaal fara badan aan sameynay meesha ay joogtaan dabcan ina ogaano talaabo walbaan soo qaadnay alxamdulillah waxaan ku guuleysanay in gabadhi walaasheena Farxiyo Jubbaland aan u tagnay lana kulanay kana dhaadhicinay nagana ogolaatay iyaduna markii horeba ay raali iyo bar ay ku ahayd in hawshan ay joojiso kharad oo ka dhacayna uu ahaa ciil qof u geeyay ay ku qasabtay marka gabdhaha Soomaaliyeed la ciilaya dhibaatada ay keeni kartana arintaas oo kale taa sabab ah marka waxaan idin ka codsanaynaa dhammaan in dadku ay nala gartaan wanaaga annaga aan doonayno ee ah in xumaata gabdhaha Soomaaliyeed ee la faafinayo la joojiyo gabadha walaasheena sawirkeedina laga wada saaro muuqaaladeeda meesha laga wada saaro qof kasta ha iska soo qaado in gabadhan isaga ay la dhalatay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ما شاء الله انت هذا اللي يقرأ ودي ان شاء الله اللي هي ما يفرحيه waxay kula sheegaysaa qof walba hadda ka dambeeyo isticmaal doona magaca Farxiyo Jubbaland ama sawiradeeda ayada ma ahan maanta aan ugu dambeysay insha Allah aniga Facebook dhan baan gala maanta ay ugu dambeeyay insha Allah wada migraadada hadda aragtay Farxiyo Jubbaland sawiradeeda oo taaniga ma aha insha Allah qof walba oo diig leh oo Soomaaliyeed oo ka xumaanayo diin leh oo ka xumaanayo gabar Soomaaliyeed oo noocaasna waxaan u maleynayaa inuu mataqaan arrintan aan doono insha Allah wana guuleysanahay okay guul Farxiyo waxaan ku rajaynaynaa walaalada baan nahay Soomaali Maxamed oo dhanna runtii waxa weeye waa wada walaalada dhammaan hadalkaaga waa la qaadan doonaa waana lagu soo duceyn doonaa dambigana qof kasta ka dhaca haniye jabin waad guuleysanaysaa gabar qurux badanna waa tahay runtii dhul ma dhacaysid waxba ka walwalay noloshaada way ku hagaagaysaa ay walaashay macaan aad iyo aad baad u mahadsantahay